kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa anigoo ah Nuurkay ah halka naga daawanaysaan waa Nuurkay official sida hore iga barateen waxaan idin wada qiso cajiib ah oo aan ciwaan uga dhigay saaxiibo faasiqiin ah fadlan hadaa ku cusub tahay subscribe saar sidoo kale gambareelka furo sidaad uga mid noqotid daawadayaasha ugu horeeya laba nin ayaa saaxiibo ahaa oo la kala oran jiray Axmed iyo Anas waxay ku saaxiibeen macaasida iyo xumaan kasta way sameyn jireen habeen iyo maalin waqtiga ay ishelaanba haween kamid haweenada ayaa Anas ku yiri saaxiibkiis saaxiib waxaan doonayaa inaan imaamka masaajidkaas tuujiyo aan xaskiisa qiyaameeyo laakiin waxaan ka baqayaa anigoo guriga ku jiro inuu igu soo baxo marka waxaan ka codsanayaa inaad masaajidka tagto oo wadaadkaas markuu dhameeyo salaada cishaha aad la fadhiisato oo aad mashquuliso marka uu soo baxo xagga gurigiisana uu soo aado telefoon ii soo dir si aan uga tago guriga oona igu soo gaarin sidii ayuu yeelay Axmed haweenkaas wuxuu la fadhiisan jiray sheekhi oo uu mashquulin jiray sidii nin su'aalo diini ah weydiinaya muddo markii ninkii uu mashquulinayay sheekhi ayaa maalintii dambe qalbigiisa Ilaahay hadiyad ku tuuray Ilaahay ayaa qalbiga nooleeyay intaas markii ay dhacdana Axmed wuxuu u sheegay sheekhi sheekadii oo dhameystiran wuxuu u sheegay in gurigiisa nin uu u dawmaro oo uu gabadhiisana qiyaameynayso oo nin la yiraahdo Anas ay soo dhaweyso inta badan markuu salaadaha uu tukanayo uu halkaas la joogo sheekhi ayaa dhahay saaxiib raali ahow aniga xasba malihi ee mataqaana Anas xaafada iyo gabadha uu qiyaameynayay tay ahayd waxay ahayd Axmed gabadhiisa saaxiibkii ayuu u dawmaray gurigiisa uu qiyaameynayay حديث أيو نبينا صلى الله عليه وسلم وكشيء قفكي دالم كلمية إسقى على وصل ليا قصدا أيا وحي إنه شيء سهد درسه حبت قائن أما عاصي هذيك أيا نوردي سكوم قنيهين قف لبها كفر صدا قفك على صاحبه سو وحن كل مدنا مقالك حجة وحن إذن لا يا سيداس إنه بتجريو ما تسندين